waxaan maanta ku noolnahay duni gebi ahaanteedaba xishoodka uu ka dhammaaday. waxaan ku noolnahay adduun application kasta muuqaaladiisu ay dhex qulqulayaan moobilkaaga. waa adduun shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo TikTok ay hantidoodu kor u dhaaftay balaayin dollar. qorshaha laga leeyahayna waa in qof kasta oo inaga mid ah shirkadahani macaamiil looga dhigo qaabkii la doonaba ha loo soo maree. nin kasta, gabar kasta iyo ilmo walba waa kuwo applicationadani u bandhigan. shirkadahaasina waxay ku taamayaan waa inay balwad ku noqdaan si macaamiil joogto ah aad ugu noqotid. waa tan hadiyadda shirkadahaas bulshada ay u sidaan oo dadku u beddelaan xayawaano iyo dad liita. ma aragtay TikTok waxa ka socda? maxaa ku dhacay bulshadii? waxani waa wax laga yaqyaqsoodo, waa wax laga matago. waxaad u malaynaysaa inaad ku sugan tahay caalam kale. waa meel haddii aad daqiiqad yar aad ku jirtid indhahagu ay daboolayaan muuqaalada xunxun iyo fisqiga. cid ka hadashaana aysan jirin. runtii halkan haddii aad ka sii mid ahaato waxaa si tartiib ah maalin walba kaaga sii dhiman doona sharaftaada, akhlaaqdaada iyo damiirkaaga. waxaad is arki doontaa indhahaaga sida xumaanta looga buuxinayo adigoo bilaa damiir ah. wax walba waxay kula noqon doonaan wax iska caadi ah. dabcan haddii aad waagii hore aad maqli jirtay kalaabka inuu yahay meel dumar qaaqaawan ay joogaan, ogow hadda TikTok waxa uu ka daran yahay 100 jibaar kalaabka. sababtoo ah kalaabka waxaa laga yaabaa in ay aadaan dad yar oo bulshada ka mid ah oo xumaantaas u bareeray. balse TikTok wuxuu in badan uu ka saameyn badan yahay kalaabka. waa meel si free ah aad u isticmaalaysid xilligaa doontid. waa caalamka oo dhan ha ku daawadaan adigoo sameynaya muuqaaladaas anshuxumada ah. qaab noocee ah ayuu u shaqeeyaa TikTok? TikTok waa mid ka gedisan dhammaan qaababka ay u shaqeeyaan shirkadaha kale ee sida Facebook iyo YouTube-ka. marka aad soo degsato TikTok uma baahnid in aad isticmaasho wax username ah. kaliya fartaada ayaad u wadwadaysaa kor iyo hoos, adigoona si furan u daawanaya muuqaalo aan dhammaad lahayn, weliba muuqaalo gaagaaban oo soconaya ilbiriqsiyo kooban. qofka isticmaalayana waxa uu samayn karaa in muuqaalkiisa uu dul saaro codad kala duwan iyo heeso dad kale ay leeyihiin. So when you seek attention, you do some silly things. You semi-remove your clothes and you keep shaking your body and you want everyone to say, wow, great, show me more. u fiirso dadka inta badan muuqaalada soo geliya TikTok waa dadka kuwa ugu liita uguna anshaxa xun. haddii aad maanta oo dhan aad ku jirto, ha ka yaabin in aad hal muuqaal oo wax aad ka korsato aad ka hesho. waa meel runtii aadan ugu tegaynin wax wanaag ah. war idinkoo waalan hadhimanina idinkoo baaquliyo madaxa ku sita, idinkoo digsiyo madaxa ku sita, idinkoo israaf burki ku ciyaaray. dhalinyaro dib isugu noqda. inta habal ina yaro madowgu oo soo cadayso halkaas soo taagan waad yaabaysa. inta ina yaro Soomaaliyeed oo halkaas rafanaya oo doonaya inuu dhaanso waad yaabaysa. inkastoo ay jiraan dad yar oo wax wanaagsan ku soo gudbiya bartaas, haddana meeshaas waa meel ay buux dhaafiyeen muuqaalada xunxun ee anshaxa wanaagsan ka baxsan. waxaana dadkii loo bedelay sidii bahaahinkii oo kale. tusaale waxaad arkaysaa hal qof madaxa intuu baaldi soo gashto in haddana ay ku dayanayaan ficilkaas kumanaan iyo kumanaan kale. maxaa ku dhacay dadkii? waxaani runtii laguma tilmaami karo wax majaajilo iyo fani ah. waxaa intaas kaaga sii daran in xitaa culimmadii laga dhigto dad lagu jeesjeeso oo lagu qosqoslo kaliya si ay ugu helaan views iyo caannimo. sheekh usuuliyo waa wiilka weydiinaya su'aasha TikTok dhanka followerska. marka sheekhow ilaa ay hadda 100k followers waa la gaarsiilayaa. war miyaad waalateen? maxaan idinku tilmaannaa noo sheega. bulshada maxaad u qaabilsan tihiin? ma qaybta waalidaanu idinku tirinnaa? kollay ilaahay agtii waad ka waalan tihiine. war ilaahayaa laga boqo. walaalayaal, waxani waa dagaal uu cadow u inagula jiro. waa dagaal inooga khatar badan dagaal kasta oo military. waa dagaal weerar lagu yahay ruuxdeenna, guryaheena iyo carruurteena. hadda dabinka meel looga baxsan kara haba yaraatee ma jirto.
sababtoo ah xumaantii ayaa meel walba inaga xigta. ma aragtay muuqaalada dadka wadaadada ah markii ay falow kaa dalbadaan ee aad istiraahda muuqaaladan sii bar meel baad arkaysaa muuqaal xun kaaga soo baxay meel waxay ka bilaabanaysaa adigoo muuqaal iska caadi ah daawanaya ayaad arkaysaa muuqaal xun waad ku dhufanaysaa mid kale kuu gudbin mid kale ku sii xiga in yar kadib waxaad arkaysaa adigoo muuqaal anshaxumo ah daawanaya. Soomaalidu waxaa lagu sheegaa dad 100% islaam ah, laakiin xaqiiqdii maxaad u malaynaysaa markii ay dadyooga adduunka ay arkaan dumarkeenni oo sidaan jirkooda ugu soo bandhigaya caalamka? ilama aha in ay sameyn lahayd gabar sharaf leh oo damiir uu ku jiro. ma ogtahay bulshadu waxay bulsho sharaf leh ay ku tahay in ay tahay haweenkooda? maxay iskaga duubaan muuqaalada anshaxumada ah? casrigan hadda aan ku sugannahay waa casri qof walba uu raadceen ugu jiro siduu ku sameyn lahaa magac iyo caanimo. sababtoo ah waxaa u sahlan inay si dhaqsi leh ay ku sameeyaan magac iyo caanimo. waxa arrinkaas u fududeynayana waa inay adeegsadaan aaladaha baraha bulshada, haba ugu darnaadee TikTok waxay ku qaadataa qofka isticmaalaya inuu caan ka noqdo muddo yar gudahooda, kaliya isagoo u baahan inuu soo geliyo muuqaalo gaagaaban. nasiib xumase bulshada dadka ugu badan ee soo gudbiya muuqaaladaasi waa dumarka kuwa ku soo bandhiga jirkooda. imisaad aragteen gabar iyadoo xijaaban soo gashay aaladan oo markii dambe iska turtay xijaabkeedii? sababtoo ah dadka daawadayaasha ah ma rabaan gabar asturan oo xijaaban. marka si ay caanimo u xaqiijiso waa inay akhlaaq wax la yiraahdo iska ilowdaan. iminka waxaad arkaysaa inantu way soo qaawanaysaa, way soo ruuxaysaa, way soo gelinaysaa, ilmihii telefoon baa loo dhiibaya, hoobaa lagu odhan TikTok baa loo samaynaya, wuu daawanaya. u fiirso waxay bulshadii ku sameeyeen. waxay sameeyeen dabin bulshada anshaxa wanaagsan ka siibaya. bulshadii waxay u rogeen bulsho bugta, bulsho aan daneynin diin iyo dhaqan suuban midna. ورميدن waxay isku falaynin raggan digsiyada madaxa u saaran baaqulyaha madaxa war baaqulyaha ma waxba lagu cunaa? war yaa digsiye baaqulyo madax ku qaata oo aanan ahayn dadka waalan? war miyaad waalatay?